kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya Jarnaal Oduwa oo ka hadlay dhabarjabin lagu wado howlgallada ciidamada ay wadaan siyaasiyiin lagu eedeeyay inay fashilinayaan dagaalka Al-Shabaab Africom oo shaacisay duqeyn ay ku dileen xubno shabaab iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalo ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose qodobadaas iyo kuwa kale ayaan warkan ku falanqayn doonaa balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku horeyne Jarnaal Oduwa ayaa ka hadlay dhabarjabin lagu wado howlgallada ciidamada ay wadaan xilli uu ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyay ciidamada qalabka sida ay ka sameeyeen gobolada dalkan Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jarnaal Oduwa Yuusuf Raage ayaa markii ugu horeysay waxa uu fashiliyay dhabarjabin weyn oo lagu wado howlaha ciidamada ay wadaan iyo howlgallada ka dhanka kooxda shabaab ee ka soconaya gobolada qaar ee dalkan Soomaaliya taliyaha Oduwa ayaa sheegay inay jiraan siyaasiyiin macaashiraadisa kuwaas oo uu ku eedeeyay in dhabarkay ka jebinayaan howlgallada ciidamada iyo dagaal ka dhanka kooxda hubeysan ee Al-Shabaab taliyaha ayaa tilmaamay in guulo wax ku ool ah laga gaaray howlgallada shabaab ee ka soconaya Hirshabeelle iyo Galmudug balse waxa uu sheegay in howlgalladaas ay ka dhaqaaqi la yihiin siyaasiyiin macaashiraadisa oo uu ku eedeeyay inay yihiin kuwa dhabar ka jebinaya howlgallada shabaab ee ka soconaya gobolada dalkan Soomaaliya taliyaha Oduwa ayaa cod dheer ugu baaqay madaxda qaranka in arrintan ay ilgaar ku eegaan oo dadka dhibaatada ku haya howlgallada ciidamada iyo dadka deegaanka ee wadaan laga qabto wuxuuna ugu baaqay madaxda qaranka inaysan indhaha ka daboolan dhibaatooyinka amni darri ee ka taagan gobolada dalkan Soomaaliya iyo dhabarjabinta xooggan ee lagu hayo howlgallada ka dhanka shabaab ee ka soconaya gudaha dalkan Soomaaliya dhinaca kale taliyaha Oduwa ayaa ka hadlay ciidamada xoogga iyo meelaha ay ka soo baxaan marka dagaalo ay kula wareegaan wuxuuna sheegay inay tahay istaraatiijiyad iyo qorshe dagaal oo arrintaas ay ka leeyihiin waa sida hadalka uu dhigay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jarnaal Oduwa Yuusuf Raage oo ka hadlayay howlgallada ciidamada iyo sababta ay uga soo baxaan deegaanada ay qabsadeen ayaa tilmaamay arrintaas inay tahay istaraatiijiyad iyo qorshaha ciidamada ay ugu talagaleen taliyaha Oduwa oo ka hadlayay dagaalka dhanka Al-Shabaab ayaa markii ugu horeysay sheegay in ciidamada ay uga baxaan deegaanada qaarkood oo qorshe uu ku dhisan yahay howlgalka socda Jarnaal Oduwa oo wareysiinayay warbaahin dowladda ayaa sheegay in howlgallada xoreynta deegaanada ay isugu jiraan laba nooc kuwa ay sii joogaan ciidamada iyo kuwa kale oo ay burburiyaan marka ay qabsadaan howlgalku sidiisa ma aha in aad tuulo kasta iyo magaalo kasta oo tagtid inaad joogaysid goobaha dagaalka qaar marka ciidanku gaaro waxaa loogu talagalay in ay ku nagaadaan halka goobaha qaarkood loogu talagalay in cadowga ku sugan laga saaro lana burburiyo ayuu yiri taliyaha Oduwa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ay Al-Shabaab kala wareegeen deegaano dhowr ah oo ay gacanta ku hayeen in ka badan 10 sano kuwaas oo hoos yimaada gobolada Shabeellada Dhexe Hiiraan iyo Galguduud howlgallada kuma ekaanayaan howlgalladan gobolada ka socda oo kaliya mar walba miisaanka howlgalku waxa uu saaran yahay meel waxaan dhihi karaa labada gobol ee Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan waxaa laga gaaray guulo aad u weyn oo yiri taliyaha Oduwa dhowr jeer ayaa ciidamada huwanta si weyn loogu dhaleeceeyay aagag ay dib uga soo baxeen iyadoo saraakiisha ciidanku ay arrintaasi ku micneeyeen istaraatiijiyad ciidan inay tahay saraakiishaas ayaa sidoo kale hore u sheegay in xeelad dagaal dib uga gurtaan aagga qaarkood ay qabsadaan balse aysan jirin awood uga timid dhanka Al-Shabaab oo ciidanku qasabtay inay isaga baxaan deegaanadii ay joogeen tani kama dhigna inaan dib u soo noqonayno oo Al-Shabaab ay dib u qabsadaan dad qaalaya ayaa naga dhinta waxaa jirta in meelaha qaar laga wareegsado oo meel kale loo wareego laakiin dib u bax weyn ma jiro ayuu yiri taliyaha Oduwa dagaalka dhanka Al-Shabaab oo madaxweyne Sheekh Maxamuud ku dhawaaqay bishii Juulaay ayaa tan iyo markii uu bilowday laga gaaray guulo waaweyn iyadoo kooxda shabaab laga saaray deegaano ay gacanta ku hayeen 10 sano tani oo ku muujinaysa in dagaalka socdaahi uu yahay mid dhaba balse taliyaha ciidanka xoogga dalku si cad u sheegay inuu jiro dibindaabiyeyn lagu wado howlgallada dagaal ee ka dhanka kooxda hubeysan ee Al-Shabaab
sidoo kale waxay hadda u muuqataa in taliyaha ciidanka xoogga uu diyaariyey istaraatiijiyad iyo qorshe kale oo ku doonayo in guul looga gaaro dagaalka dhanka al-shabaab. dhinaca kale militariga Soomaaliya ayaa sheegay in ay laba duqeyn lala beegsaday al-shabaab ka tirsan ururo ka tirsan shabaab nawaaxiga Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe, halkaasna guul laga gaaray. war-saxaafad ka soo baxay taliska militariga ee Africom ayaa lagu sheegay in duqeymaha ka kala dhaceen 14 iyo 17 bishan December laguna dilay isugeyn 15 shabaab ka tirsanaa oo ku sugnaa deegaankaasi. Africom waxay sheegtay in duqeymahan ay ahaayeen kuwa isdifaacida ayna dhaceen kadib markii codsi uu ka yimid dowladda federaalk ee Soomaaliya. Africom waxay sheegtay in qiimeyntu ay muujinayso in dad rayid aysan ku dhiman kuna dhaawacmin duqeymaha ay ka fuliyeen gobolka Shabeellada Dhexe. weerarada diyaaradaha Turkiga iyo Mareykanka ayaa kusii kordhiya gobolka Shabeellada Dhexe, taasi oo muujinaysa in saaxiibada caalamka ay si dhab ah u go'an tahay in kooxda shabaab laga ciribtiro dalka sida ay aaminsan yihiin dadka falanqeeya siyaasadda. weerar kale oo ka dhacay deegaanka Juxa iyo hoosaga degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa Sabtigii waxaa lagu dilay 7 xubnood oo ka tirsan shabaab, waana mid ka mid ah khasaarihii ugu badnaa ee mar qura gaara kooxda al-shabaab. waxaa xubnahaasi ka mid ahaa Yuusuf Maxamed Jingaab Wasiir oo ka mid ahaa xubnaha ugu halista badan kooxda al-shabaab. ciidanka nabad sugidda zoonka qaranka ayaa xaqiijiyay geerida Yuusuf Jingaab oo ahaa horjooga soo ka tirsan qawaariijta, kaasi oo halis weyn ku ahaa badqabka shacabka Soomaaliyeed lagu yiri war ka soo baxay dowladda federaalk ee Soomaaliya. sida aynu ogaanay, Yuusuf Jingaab ayaa lagu dilay duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga, gaar ahaan nooca Bayraktar TB2 kaas oo ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe. Mareykanka iyo Turkiga ayaa hawada ka taageeraya ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk Soomaaliya, kuwaas oo dagaal culus oo axbal iskula harin kula jira kooxda hubeysan ee al-shabaab. balse waxay hadda u muuqataa in dagaalka shabaab uu galayo wejigiisii gabagabada, xilli eedeymo culus loo jeedinayo shakhsiyaad iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya oo la sheegay in macaash ay ka raadinayaan dagaalka shabaab oo qaarkood dibindaabiyeen ku wada sida hadalka ay u dhigeen. wararkii ugu dambeeyay fariimaha hore ee dagaalkana waxay sheegayaan in ciidanka xoogii dadka deegaanka ay kusii foogan yihiin deegaano dhowra oo dhowaan kooxda shabaab ay ka qabsadeen ciidanka dowladda dadka deegaanka, kuwaas oo ka tirsan Hirshabeelle iyo Galmudug. guud ahaan saaxiibayaal wanageynta wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee waddanka iyo dagaalka dhanka shabaab oo sii xoogeysanaya. tan iyo kulan dambe waxaan kaga tegaynaa sidaas nabadgelyo.